بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waxa weeyaan Cabdiraxmaan Maxamed Ismaan waxaan kamid ahay macallimiinta jaamacadaha wadanka 10kii sano ee ugu dambeeyayba jaamacadaha wax ka dhigay hadii aan ka sheekeeyo kulliyadda la yiraahdo pharmacy-ga ama kulliyadda la yiraahdo pharmacology-gu waa kulliyad ballaaran runtii waa kulliyad ka kooban laba qaybood qayb la yiraahdo generic pharmacy oo ardaygu uu ku takhasusayo inta badan daawooyinka iyo siyaabaha loo sameeyo isagoo aad moodo xagga inuu xoog la saarayo xagga warshada ama daawooyinka la soo saarayo tayadooda iyo waxyaabaha ay tahay iyo qayb la yiraahdo D-Pharm ama Doctor of Pharmacy la yiraahdo oo isagana aad moodo takhasuska in xoog la saarayo waxyaabaha clinicalka marka kulliyaddan pharmacology-ga ama pharmacy-gu labada qaybood bay u kala baxdaa qaybta koobaad waxa la yiraahdaa generic pharmacy qaybta labaadna waxa la yiraahdaa D-Pharm ama Doctor of Pharmacy baa la yiraahdaa pharmacy-gu sidiisaba marka la qeexayo waxa la yiraahdaa wuxuu isugu jiraa laba qaybood marna waa science waxa la baranayaa dawada chemistry-geedii iyo waxyaabihii ay ka koobnayd dawadii iyo sidii loo baarayay iyo cidda qaadan karta iyo cidda aan qaadan karin oo marka dhinaca science-ka laga hadlayo mar labaadkana waxa la yiraahdaa pharmacy-gu wuxuu ka hadlaa inta badan waa maamul ama waa arts baa la yiraahdaa oo waxa la maamulayaa dawada habkii loo maamuli lahaa habka ugu fiican meesha la dhigayo marka qaybtii maamulkuna way ku jirtaa marka pharmacy-gu laba qaybood buu isugu jiraa qayb arts-ana uu leeyahay qayb chemistry-ana uu leeyahay ama qayb science-ana uu leeyahay oo kulliyadda ballaaran pharmacy-ga baahida dalku uu qabo markaynu eegno kulliyaddan waxaan isleeyahay waa kulliyadaha wadanka baahida ugu badan loo qabo tusaale ahaan waxaan soo qaadanayaa maanta meel walba marta waxa ka furan pharmacy ayaa ka furan pharmacy-ga markaad eegto dadka haya maaha dadkii takhasuska lahaa maaha marka waxaynu u baahannahay dad takhasus dawooyinkii u leh oo dawooyinkii naga eegay marka baahidu loo qaba kulliyaddan aad bay u sareysaa runtii maaha kaliya inay dawooyinka soo dejiyaan ama ay dawooyinka eegaan waxa kale samayn karaan mar walba ardayda kulliyadda ka qalin jabisay drugska ama dawooyinka way samayn karaan hadii warshado dawooyin wadanka la keeno iyaga ugu horeeya cidda samaynaysa dawada tayadeeda inaga eegi doonaan dawada sida loo qaato ay dadka ka shaafiyi doonaan wax fara badan ay qaban doonaan marka baahida loo qabo kulliyaddan runtii aad bay u sareysaa cidda kulliyaddan dhigan kartaa waxa la yiraahdaa arday oo dhan ma wada dhigan karto ardayda ugu fiican ee dhigan karta waa ardayda ka qalin jabiyay science-ka ama extreme-ka uu science-ka yahay waliba waa ardayda aad ugu wanaagsan labada maadadood ee la kala yiraahdo chemistry-ga iyo biology-ga ardayda ku fiican ardaydaas inta badan aad ugu wanaagsan kulliyaddan oo kamida dhalin karta runtii ardaygu hadduu chemistry-ga aad u yaqaano ama chemistry-ga uu ku fiican yahay iyo biology-ga maadada saddexaad ee soo raacda waa maadada la yiraahdo xisaabta ama mathematics-ka saddexda maadadood hadduu qofku ku wanaagsan yahay ama ardaygu hadduu ku wanaagsan yahay waxaynu kula talin lahayn inuu qaato kulliyaddan pharmacology-ga ama pharmacy-ga uu qaato kulliyaddan ardayda waxay ka dhisaysaa qaybo fara badan tusaale ahaan waxay ka dhisaysaa aqoontii pharmaceutical dunida loo lahaa ama pharmaceutics-kii wuxuu doona ha ahaado sida dawooyinka loo nashqadayo ama loo design gareeyo sida dawooyinka loola taliyo ama drug interactions sida bini'aadamka loola taliyo waxay ka dhisaysaa tusaale ahaan kale industrial pharmacy dawooyinka sidii loo sameyn lahaa waxay ka dhisaysaa qofka barashada dawooyinkii waxay ka dhisaysaa clinicalkii qofku pharmacy intuu tago inuu dawo iibin karo uu taladeeda bixin karo uu tusaale ahaan oo kale check gareyn karo waxana inay dhaceen iyo inaanay dhicin waxyaabo fara badan bay ay qofka bini'aadamka ay ka dhisaysaa takhasusaatka qofka u bannaan way fara badan yihiin qofka digrigiisu yahay pharmacology ama pharmacy uu yahay takhasuska koobaad ee u bannaan waxa weeye inuu sii wadan karo cilmigii pharmacy-ga pharmaceutical science buu ku qaadan karaa medicinal chemistry buu ku qaadan karaa traditional medicine buu ku qaadan karaa pharmacognosy buu ku qaadan karaa dhinaca markaynu u eegno pharmacology-ga ayuu sii wadi karaa hadduu doono takhasuskiisa wuxuu qaadan karaa MBBS ama medicine bachelor of medicine bachelor of surgery ayuu qofku 2 sano haddii uu ku daro ayuu sii qaadan karaa wuxuu qaadan karaa public health ayuu qofku samayn karaa marka takhasusaad fara badan baa u bannaan oo caafimaad nooc doona leh nutrition baa u bannaan waxyaabo fara badan baa qofka bini'aadamka ayaa hadhow toole u bannaan fursadaha shaqo ee qofkan uu heli karaa way fara badan yihiin runtii tusaale ahaan meelaha uu ka shaqayn karo qofkan waxaa ka mid ah dawooyin ganacsi buu geli karaa oo dawooyin buu keeni karaa isagoo dawad tayadeedii iyo macnahay dawadu tahay garan kara macallin buu geli karaa isbitaal buu ayuu qaybta dawooyinka oo dhan ayuu ka mas'uul ka noqon karaa consultant dawooyinka ayuu noqon karaa warshad dawooyinka lagu sameeyo
ayuu ka shaqayn karaa ama uu ka tirsanaan karaa ama dawooyinka uu samayn karaa quality controlka wadanka ayuu qabsan karaa ama quality controlka wadanku ka shaqayn karaa oo waxyaabaha qualitygooga maalmahan dambe aadka loo eega waxaa ka mid ah dawooyinka ka mid ah wuxuu geli karaa qofku maamul oo mar haddii dawadii ay tahay qayb maamulka ka mid oo dawadii la maamulayo ta dhacday ta aan dhicin teeba hore u socota teeban hore u socon qaybtii maamulka dawooyinka ayuu mas'uul ka noqon karaa waxyaabo fara badan ama fursado badan oo shaqo ayaa runtii u bannaan wasaaradda caafimaadku geli karaa hay'adaha caalamiga ayuu ka shaqayn karaa inta badan daawooyin ka shaqeeya waxyaabo badan ayuu ardayga ka qalin jabiyay kulliyadani ayuu qabsan karaa ardayow ay ku qanciyeen ama aad jeceshahay waxaan kugula talin lahaa inaad kusoo biirto kulliyadda pharmacy-ga ama pharmacology-ga ee jaamacadaha wadankeenu ay leeyihiin ayaan kugula talin lahaa si aynu u daboolno baahida wadankeena u taalla si aynu wax u qabanno ama waxaynu ugu qabanno dadkeena jilicsan ee u jilicsan weliba qaybtan daawooyinka waxaan kugula talin lahaa inaad kusoo biirto kulliyadda pharmacy-ga ama pharmacology-ga waxaa muhiima wadankeena maadaama shaqaalaha caafimaadku ay yar yihiin waliba shaqaalaha aadka u sii yar waxaa ka mid ah shaqaalaha dawayaqaanku ama pharmacologist wadanka aad bay runtii ugu yar yihiin si markaa taa looga baxo waxaynu u baahannahay dhalinyaro fara badan oo barata kulliyaddan pharmacy-ga si aynu u helno shaqaale ku filan cisbitaaladeenna goobaheena caafimaadka ilaa marka dambe aynu gaarsiinayno xaafad walba inaynu u samayno ama family walba inay helaan qof dawayaqaana ilaa aynu gaarayno mustaqbalka waxaan kugula talinayaa inaad kusoo biirto kulliyaddan si aynu u noqono xoog isku kaashada aad iyo aad baad mahadsantihiin on idin mahadnaq thank you very much